filimku wuxuu ku bilaabanayaa 1992 magaalada Bogota ee caasimadda Colombia. waqtiga nin darooga iibiya oo lagu magacaabo Don Las ayaa wuxuu la fadhiyaa mid kamid ah saaxiibadiis oo lagu magacaabo Fabio. Don Las iyo Fabio waxay ka wada hadlayaan flash drive oo ay ku jiraan macluumaad ku saabsan ganacsigooda. kadib markuu siiyay flash drive-tii, Fabio ayaa muujiyay rabitaankiisa inuusan rabin inuu joogo meeshan uuna iskaga tago gebi ahaanba daroogadan uu ku dhex jiro, si la midna uu rabo markaas inuu dhisto nolol farxad leh oo tan ka duwan. Don Las dabcan kuma faraxsana go'aanka Fabio. kadib markii Fabio uu baxay, Don Las wuxuu ku amray Marco oo ah mid kamid ah shaqaalihiisa inuu dilo Fabio. kiligi maahan, si la midna uu baabiyo dhammaan qoyskiisaba. Fabio oo filayay ficilada Don Las ayaa soo aaday gurigiisa. markuu guriga yimid, gabadhiisa ayuu wuxuu siiyay flash drive ay ku jiraan macluumaad ku saabsan daroogada Don Las. gabadha yar waxa lagu magacaabo Catleya, waana 9 jir. wuxuu sidoo kale siinayaa ciwaan qof jooga Chicago kaas oo ilaalin doona haddii gabadha yar waalidkeedu ay dhintaan. muddo aan dheereen kadib, raggii uu Don Las soo diray waxay isla markiiba weerareen gurigii Fabio iyagoo laayay dhammaan ilaaladii Fabio. si la mid ah gudaha ayay soo galeen, waxayna dileen Fabio iyo xaaskiisa iyadoo ay gabadh yar indhaheeda ku daawanayso. Marco ayaa ku soo dhawaanaya Catleya oo ka wareysanaya halka ay ku sugan tahay flashtaas ay ku jireen xog ku saabsan macluumaadka ganacsiga Don Las. laakiin Catleya si geesnimo leh intay u booday ay gacanta ku dhufatay Marco ay goobti ka carartay. markaan aragno qaabka ay u baxsanayso, waxa ku tababaray qaabkan aabaheed. mar walba xaalad adag ay la soo gudboonatana wuxuu ugu talagalay inuu sidan oo kale uga baxsato. kadib markay u suurta gashay inay baxsato, Catleya waxay aadaysaa safaaradda Mareykanka. ugu dambeyn waxaa loo ogolaaday inay aado Mareykanka, waxayna yeelatay aqoonsi cusub. flashtii aabaheed u soo dhiibay ay wuxuu dhiibisaa shaqaalaha safaaradda. inkastoo saraakiisha Mareykanku ay isku dayayaan inay u wareejiyaan qaybta daryeelka carruurta, laakiin Catleya ugu dambeyntii meesha ay ka soo tagtay waxayna raadinaysaa qofkii jooga Chicago oo aabaheed intuusan dhiman ka hor uu siinayay ciwaankiisa. waxaana soo baxday inay raadinayso nin lagu magacaabo Emilio cid kale maahan, waa adeerkeed. wuxuuna ku farxay imaatiga gabadha yar oo in badan sugayeen. wuxuuna kaxinayaa gabadha yar oo guriga geynaya. si la mid ah waxaa soo dhaweynaysa ayeedeed oo iyaduna ku faraxday imaatikeeda. maalinta xigtay, Emilio wuxuu isku dayay inuu geliyo Catleya dugsi u dhow, laakiin Catleya way ka diiday. taa beddelkeeda waxay ka codsanaysaa adeerkeed inuu u tababaro sidii ay gacan ku dhigle u noqon lahayd. adeerkeedna wuu ka ogolaaday inuu ku tababaro, laakiin hal shuruud ayuu raaciyay. shuruuddaas oo ah inay noqoto dilaac caqli badan. taas micnaheeduna ay tahay inay waxbarashadeeda sii wadato. 15 sano kadib waxaa layna tusayaa 2 askari oo ku raaxaysanaya qado gaarigooda dhexdooda. wax yar kadib waxaa gaarigooda lagu dhuftay gaari ay wadatay haweeney sirkhaansan. cid kalena maahan, waa Catleya oo weynaatay. intaa kadib Catleya ayaa la xiray oo la geeyay saldhigga booliska. maadaama ay sirkhaansan tahay, booliska waxaa ku adkaatay inay su'aalo weydiiyaan. ugu dambeyntiina way dejinayaan, waxayna geenayaan qolka su'aalaha si loo weydiiyo su'aalaha maalinta xigta. isla markaana waxaa yimid boolis wada maxbuus lagu magacaabo Gennaro kaasoo si ku meel gaara loo soo xiray. dhan kale, Catleya oo iska dhigaysa inay sirkhaansan tahay waxay rabtaa inay khiyaanayso booliska oo ay ka baxsato goobta. waxayna soo gelaysaa qol, kadib si guula ayay u furaysaa albaabka qol kale. waxayna kasii siibatay marinka hawl qaadista. waxayna soo gelaysaa qolka nasashada. halkaas ay ku guulaysatay inay garaacdo mid ka mid ah ilaalada. Catleya ayaa markaa kadib waxay soo aadaysaa qolkii lagu hayay Gennaro. isla markaa ay soo gashaba waxay dilaysaa Gennaro. dib ayayna ugu soo noqonaysaa qolka ay markii hore ku jirtay si aysan uga shakiyin booliska gaafureega ah. maalinta xigtay, Catleya waa la sii daayay. sarkaal ka tirsan FBI-da oo lagu magacaabo James Ron ayaa loo xilsaaray inuu soo saaro dilka Gennaro. Catleya waxay noqotay gacan ku dhigle dhammaystiran iyadoo adeerkeedna ku garab siinayo. dil kastoo ay Catleya geysatana waxay kaga tagtaa goobta saxiixeeda iyadoo qofka jirkiisa ku qoraysa. goobta waxay isu beddeshay iyadoo layna tusayo wakiil CIA ah oo lagu magacaabo Richard. wuxuuna u imaanayaa Don Las goobtii uu ku dhuumanaya markaa, isagoo ku wargelinaya dilal badan oo ay geysatay Catleya. Richard ayaa isku dayay inuu uga digo oo iska ilaaliyo gabadha yar. dhan kale, Emilio wuxuu yimid Catleya si uu siiyo qandaraas cusub, halkaasoo bartilmaameed uga dhigay nin lagu magacaabo Walker. ugu dambeyntii, Emilio wuxuu ogaaday xaqiiqada Catleya ay rabto oo ah inay u aarto waalidkeeda. wuxuuna adeerkeed uga digayaa inay iska dhaafto si aysan nafteeda iyo qoyskeedaba khatar u gelin. laakiin Catleya way diiday, waxayna rabtaa inay sii wadato aargoosigeeda. habeennimadii, Catleya waxay la joogtaa saaxiibkeed iyadoo qarinaysa aqoonsigeeda dhabta oo u sheegatay isaga magac kale. muuqaalka ayaa wuxuu wareegayaa ninkii lagu magacaabay Walker oo ah nin dambiile ah, wuxuuna joogaa gurigiisa. habeennimadii, Catleya waxay soo gashay gurigiisa, waxayna rabtaa inay disho, laakiin isla markiiba markay soo gashay maysan dilin. cabaar kadib, isagoo biyihiisa ku dhex jira ayay dishay. maalinta xigtay, wakiilkii Ross wuxuu muujinayaa inuu helay xoogaa caddaymo ah qofkii markaa ka dambeeyay dilka Gennaro. wuxuuna sheegayaa in Catleya ay ka dambeysay, isagoo sheegaya in CC kamarada ay ka qarinaysay wejigeeda markii saldhigga la keenay. dhan kale,
Danny wuxuu la kulmayaa saaxiibkii isagoo la fadhiya maqaaxi wuxuuna tusayaa sawirka Katleya oo huruda ninku wuxuu go'aansanayaa inuu baaro taariikhdeeda isagoo u diraya sawirka mid ka mid ah saaxiibadiisa booliska dhan kale Agent Ross oo ka shaqeynaya inuu aqoonsado dilaaga ka dambeeya in ka badan 20 qof oo aan la garanin cid dishay booliska ayaa isla markaas dhageysanaya telefoon uu soo diray Danny isagoo u sheegaya goobta saxda ay joogto Katleya oo markii horeba ka feejigneed in la soo weeraro ayaa cararaysa markay aragto in booliska ay guriga isku soo hareereeyeen waxayna sameynaysaa inay qorigeed qaadato oo ay ka baxdo qayb ka mid ah guriga dhan kale Donlas oo horay u ogaa inay nooshahay weli Katleya isla markiiba amar ayuu ku bixiyay Marco inuu dilo iyada Marco iyo qaar ka mid ah raggiisa ayaa soo aaday dalka Mareykanka si ay gabadha yar u soo dilaan waxayna dabagal ku sameeyeen Emilio halkaas oo ay markii hore ku sugnay Katleya balse nasiib darro ma aysan helin Katleya sababtoo ah way ka baxsatay goobta isagoo aan ka fikirin Marco wuxuu isla markiiba dilayaa Emilio iyo sidoo kale Katleya ayaydeed Katleya oo isku dayaysay inay gaadho adeerkeed si ay uga qariso booliska ayaa aad u la yaabtay markii guriga soo gashay waxayna aragtay labadoodii oo la dilay iyadoo dhanna ka xanaaqsan dhanna ka murugaysan ay raadraac ku samaysay wakiilka Ross waxayna ku soo booqatay gurigiisa Katleya waa qoys markan waxayna u hanjabtay Ross inay dili doonto isaga iyo xaaskiisa iyo carruurtiisaba hadduusan ka caawinin missionkan ay wadato waxayna ku qasabtay inuu la xiriiro wakiilka CIA-da kaasoo ay og tahay inuu ilaaliyo Donlas wakiilkii Ross wuxuu ku qasban yahay inuu u hoggaansamo codsiga Katleya wuxuuna la kulmayaa wakiilkii CIA-da markuu wakiilka CIA-da diido inuu sheego goobta uu joogo Donlas Katleya ayaa u hanjabaysa waxayna u sheegaysaa inay tani ku xiran tahay badbaadada qoyskiisa ugu dambeyntii wakiilkii CIA-da ayaa ka caawinaya goobta uu joogo inuu u sheego kadib markii Katleya heshay xogtii ay rabtay waxay si degdeg ah isugu diyaarinaysaa inay baxdo oo ay u duusho Colombia si ay uga soo argudato Donlas oo qoyskeeda xasuuqay dhan kale Donlas iyo ciidankiisii waxay filayaan weerarka rogaal celinta ee Katleya waxayna bilaabayaan inay isu diyaariyaan si kastaba ahaatee Katleya markii goobta timid waxay weeraraysaa saldhigoodii balse waxay ku maqan yihiin ka shaqaynta qorshe kale arrintaa markuu maqlay Donlas wuxuu ku dhumanayaa qol laakiin Katleya waxa u suurta gashay inay leyso dhammaan ciidankii Donlas isagoo uusan ku qaadan waqti tiro badanba ugu dambeyntii si ka foolka ay Katleya ula kulantay Marco oo ahaa ninkii dilay qoyskeeda labadoodii waxaa dhex maraya dagaal ba'an laakiin Katleya ayaa ugu dambeyntii dishay Marco isagoo u malaynaya inuu badbaadayo Donlas ayuu ka soo cararaya goobtii wuuna soo dhuumanaya Katleya ayaa iyaduna wacd ku maraysa inay u argudi doonto qoyskeeda Donlas ayaa isla markaas soo fuulaya gaari si uu baxsado laakiin intuu jidka ku soo jiray waxaa telefoon ka soo wacaysa Katleya Donlas oo u malaynaya inuu ku guuleystay inuu baxsado ayaa la yaabay joogitaanka eeyo si gaar ah loo tababaray oo weerar ku soo qaaday isaga iyo baabuurkiisiiba kuwaasoo isla markiiba ku soo booday ninkii waxayna googeynayaan dhammaan jirkiisii filimkiina saas ayuu markaa ku dhammaaday haddii aad xiisaysid muuqaalada noocan oo kale ah fadlan channelka subscribe saaro sidoo kale muuqaalkan like garee si markaa dad badan u gaaro waana kaaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan intaan muuqaalka xig ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh